gabadha aan guursan doono meherkeeda waxaan ka dhigi doonaa 200 la'aad. magacay waa Cali waxaan ahay xoolo dhaqato ku nool magaalada Sweden. gurigan waa gurigan ku noolahay baadiyaha. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamijkaas oo ku socoto gabdhaha Soomaaliyeed. waxaan fariin u dirayaa gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta adduunka ay ku nool yihiin. maanta waxaan go'aansaday inaan guursado gabar Soomaaliyeed maadaama baadiyaha aan deganahay oo gabar Soomaali joogin aan heli karin fariin halka aan ugu diro. gabadha aan guursan doono meherkeeda waxaan ka dhigi doonaa 200 la'aad. 200 la'aad. deegaha fur 200 la'aad ka dhigi doonaa laakiin waxa wata 5 shuruudood. 5 shuruud ah gabadha kalarkeedu inuu madow ahaada waa inay 22 ilaa 30 sano inay jirtaa. waa inay passport European haystaa iyo inay isoo guuri karto meeshan isoo guuri karto aan deganahay gurigan waa gurigii labaad guri kale alle waa jiraa waan tusin doonaa oo midda ugu dambayso inaysan ilmo haysanin sababtoo aad ay u dhibantay meesha ilmo la haysto. WhatsApp-kayga hoos ku soo qori doonaa. WhatsApp-kayga hoos ka fiiri lambarkayga waxaa isoo dirtaa CV-gaaga waddankaad degan tahay sanadkaaga da'daada. haddii lagu soo furo dhib ma laha garab waan ahaan kartaa laakiin da'daada inay ka bato ma sidon. midda kale alla ka cabso waxaan u sameynin 200 adartiis meherkaaga u sameynin aan business u sameynin waxaan ka codsanahay hadaad guur diyaar u ahayn oo aad macnaha mustaqbal rabin walaal ku bariyaa ilaah dartiisa hay isu dhawaan infaante. midda kale aan ka hadlo waxay tahay marka is guursano waxaan is guursanayna diinta muslimka miska khori doono sababtoo ah waa iska khori doona laakiin hadda maaha hadda ka shirkadida ku yaacay infaante soo waa dhib.